siyaasi maxamed cismaan oo maanta waraysi gaara ku siinayay TV-ga caalamiga Soomaaliya isku daa magaalada Burco ayaa ka hadlay sida uu arko isku shaanayntu maalinta shalay ku sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi qaar kamid ah golihiisa wasiirada siyaasiga ayaa sidoo kale xukuumadda ku dhaliilay xarun baarlamaan oo la sheegay in Puntland ka dhisanayso degmada Badhan ee gobolka Sanaag isagoo sheegay in xukuumaddu ka gaabisay wax ka qabashada arrintani waxaana hadaladiisa kamid ah madaxweynaha dadku waxay tabayaan saami qaybsi weyn bay tabayaan madaxweyne waxaan ogsoonahay wasiirada aad bedeshay wasiiro wax qabad muujiyay dhaqdhaqaaq muujiyay madaxweyne golaha wasiirada waxa ku jira wasiiro aad iyo aad looga cabanayo oo uu ka yahay wasiirka warfaafinta oo ay dhaqankii beelaha kamid ah beelaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu geystay hablahoodii hadal aanan qaban madaxweyne wax badan baa lagaaga ergoday ugu yiri madaxweyne ninkaasi wuxuu ku gafay dhaqankii ee talaabo ka qaad madaxweyne waxaan ogsoonahay wasiirka warfaafinta wuxuu diiday oo uu yiri agaasimihiisa guud yiri ila shaqeyn maayo iga bedel madaxweyne isagoo wasiir kaliya ayaad ka aqbashay oo aad ka bedeshay asaate isagii wili waa wasiir waxaan kaloo ogsoonahay wasiirka gaadiidka iyo cirka oo aan ogsoonahay in uu cunaha iskaga duubay hay'adda wadooyinka dikreetadii maareeyaha uu soo saarayna uu kansaray wasiirkaana wax talaaba madaxweyne kamaadan qaado bulshada waxay eegaysaa dikreetooyinkaaga ugu horeeyo inaad xilka xayuubin ku sameyn doonto wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaadiidka iyo cirka waxaan ogsoonahay wasaaradda arrimaha dibadda inay xaaladooda ay soo gabaabsi noqotay ay soo xidhantay waxaanu ka rajaynaynaa madaxweyne in aad wasaaraddaas u dhiibayso wasiir karti aqoon leh oo ka mid dhalin karaya ictiraafka qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay bulshadan doonayso madaxweyne waxaan ku leenahay ilaa hadda bulshadan wixii ay ku qanci lahayd lamaadan iman madaxweyne waxaan ogsoonahay maanta xaaladda dalka arrimaha gudaha inay meel halis marayso waxaan ogsoonahay in dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu soo duulay oo maamulka Puntland lagu soo duulay halka baran oo ay ka tirsan tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gobolka Sanaag laga dhisayo xarun maamulka Puntland ka sameysanayo golaha baarlamaanka in aqalkii baarlamaanka halka laga dhiso wax talaabo ah iyo wax dhaqdhaqaaq oo aad ka muujiseen xukuumadahan haba yaraatee ma jirto waxaan kaloo ogsoonahay ciidan liyu booliisa inay arrimaha gudaha dalka ay gudaha u soo galeen adigoo sheegay cid alaala cidii nabadeynta ka qayb qaadanaysa iyadoo la eegay qarannimada iyo madax bannaanida in la soo dhaweynayo hasaatee ciidan markuu yimaado bulshada qaranka waxay u qaadatay ciidankaasi inuu yahay ciidanka nabad ilaalinta jooga Soomaaliya qayb kamid ah in loo soo diray Soomaaliland oo arrimahana ay faragelinayaan inagu waxaanu leenahay ciidan qaran waxaanu nahay dawlad dhisan waxa loo baahnaa madaxweyne in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo kaashanaya guurtida soo in ay ka howlgalaan arrimahaas waxna ka qabtaan madaxweyne aad iyo aad baa arrimaha jira lagu dhaliilaya madaxweyne waxaan ogsoonahay hadda ka hor wasiirka maaliyadda Yuusuf ay aad bedeshay waxa ka cawday reer Gabriel oo ugu deeqay lacag dhan 9 milyan oo laana hase ahaatee ninkaasi marka ay ka cawdeen reer Gabriel dikreetadaadii waxaad ku saleysay ninkaasi cawashada laga soo cawday awgii in loo bedelo waxaan ogsoonahay ramaax in hore ay intay reer Gabriel uga cawdeen aad ka bedeshay waxaan ogsoonahay madaxweyne haddana gudoomiyihii aafooyinka qaxoontiyada ahaa ku xigeenkiisii oo uu ka biyadiiday inaad markiiba aad ka bedeshay madaxweyne bedelaada aad bedelaysa iyo xilka qaadista aad sameynaysaa waa in si cadaalad ah oo aad u eegto waa inaad wax laga bedelo madaxweyne hadda ninkii hore ee gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo aafooyinka masiibooyinka ku-xigeenka ahaa lamana eriyin xilka qaadisana laguma sameyn booskiisiina waxaa loo magacaabay mas-uul kale ayaa loo magacaabay bulshadan madaxweyne waxay weli eegayaan oo ay leeyihiin muddadii lagu doortay xilka waxaad maraysaa muddo sanad ayaad maraysaa waxyaabo fara badan baa lagaa eegaya guurtidii golihii wakiilada cabaad baa ka baxaya madaxweyne waxaanu ku leenahay arrimahan هو سؤال أحمد شافي سومالي TV برعو.